Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikachi. Maanta waxaan qaadanaynaa 29 deep questions 29 su'aalood oo aad iyo aad u qoto dheer. Qofka kusoo jeedinaya waa Muxiidiin Cabdi Cali. Waxaan qaadanaynaa 29 deep questions su'aalo 29 ah oo aad u qoto dheer. Deep waa aad u qoto dheer, yacni macne weyn noo sameynaya nolosheennana ku salaysan. Okay, su'aalahan jawaabo ma wataan. Waxaan rabaa qof walba sibay ula muuqanayaan ama sibay u yihiin. Waxaan rabaa kolkii su'aasha aan ku weydiiyo inaad waxa weeye jawaabtaada qoratid oo meel ku qoratid. Haddii ay hadhow kula noqoto inaad nala wadaagi kadib jawaabaha qayb ka midana fadlan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Okay, cashirka aan guda galno. Okay, su'aasha koowaad. What is your relationship with your parents like? Xiriirka aad la leedahay. What is your relationship? Xiriirka aad la leedahay muxuu yahay with your parents waalidka? Okay, like yacni xiriirka aad waalidka la leedahay waa sidoo kale wey. What is your relationship? Xiriirka aad la leedahay with your parents like? Waalidka xiriirka aad la leedahay waa sidee oo kale. Do you want it to be? Waxaad rabtaa inaad noqoto more like or less like your parents? Waxaad rabtaa inaad more like inaad aad waalidkaaga kale u noqotid mise less like ama wax yara aad kala midoodid bartaa. Wax yara waalidkaa leeyahay inaad yeelatid mise wax badan oo waalidkaa leedahay. Hadday dabci noqoto, hadday waxa weeye caqli noqoto, hadday waxa weeye muuqaal noqoto. Ma waxaad rabtaa wax badan inaad uga ekaatid mise wax yar inaad uga ekaatid barta. Waa su'aasha labaad. Su'aasha saddexaad. Have you ever been in love before? Weli jacayl ma kugu dhacay? Su'aashan qof markaa weydiinaysid. Have you ever been in love before? Weli jacayl ma kugu dhacay? Okay. Okay, have you ever been in love before? يعني weligaad jacayl ma kugu dhacay? Okay. Tell me the history of your first love. Waxaa ii sheegtaa sheekadii jacaylkaagii kugu horreeyay. Tell me, ii sheeg the history sheekada of your first love, jacaylkaagii ugu horreeyay. If you could make money, su'aasha shanaad. If you could make money, haddii aad lacag samayn kadid, dawin adigoo samaynaya anything, wax walbaba ha ahaadeen. In this world, adduunkan, what would you do? Maxaa samayn lahayd? Haddaad lacag samayn lahayd, adoo qabanaya wax walba ee dunida, maxay ahayd wixii aad qaban lahayd ee aan lacagta ka samayn lahayd? Okay, qodobka lixaad ama su'aasha lixaad. What are the 5 things you could not live without? Waa maxay shanta shay ee aadan noolaan karin la'aantood? Shanta shay ee aadan noolaan karin la'aantood. Okay, su'aasha toddobaad. What is one article of clothing? Waa maxay shayga ama marada you could never part with? Aadan weliga ka tegi karin. Article of clothing waxaa la yidhaahdaa waa maro aad xiratid laakiinse aan cawradaada ku asturin oo aadan mara ahaan ku anfacayn, ama wuxuun aad qaadatid oo dharkaaga ka mida maca daalika aan dhar kuu noqonayn. Sida tusaale ahaan kale nin dhalinyara oo ul wata, ama nin dhalinyara oo cimaamad wata, ama nin dhalinyara oo waxa weeye gacanta wax ugu xiran yihiin. Okay, waxyaalahaas oo kale maxay yihiin mid ka mida waxyaabahaas oo kale oo aadan weliga iska dayn karin. Yacni mar walbo aad meel aadaysid waa xirataa, kama tegi kadib. Noloshaada ma iska dayn kadib. Shaygaa noo sheeg macnaha. Waxaa laga yaabaa inuu xiiso yeesho. Haddaa commentigana ku wadaagi kadibna waa soo dhaweynanaa. Who is someone waa kee qofka in your life ee noloshaada that you are really look up to aad ixtiraamtid? Waa maxay qofka noloshaada aad ixtiraamtid si dhaba ah u ixtiraamtid? Okay, waa su'aasha sideedaad. Su'aasha sagaalaad. What is one of your most cherished memories? Waa maxay xasuusaha ugu muhiimsan ee aad maskaxdaada ku haysid? Macnaha memories waa xasuuso, cherishedna waxa weeye aad ku haysid, yacni ka ugu badan ee maskaxdaada ku haysid. Macnaha waxa ugu badan ama ugu sarreeya ama ugu weyn ama ugu fiican ee aad xasuusatid waa maxay macnaha? Have you ever hurt someone? Weligaa qof ma dhaawacday and deeply regretted it? Si qoto dheerna ma uga shalayday? Did you ever make amends? Ma samaysay wax waxa weeye daymo ah ama waxa weeye
yacni qofkii dhaawacii u geystay ama ha ahaado mid aad maskax ahaan uga geystay ama qalbi ahaan uga geystay ama mid muuqaal ahaan uga geysatay markaa ka shalayday oo regret aad ka samaysay kadibna qofkii intaa u tagtay ma tirisaanay wax iga noqdeen sababta regret inaa ka shalayday waxay noqon kartaa keliga intaa meel fariistay inaad tiraaniyo qofka maxaa ugu samaysay war waa qaldaneed waxyaalahaas dhan inaad isweydiisid inaad dhaawacii qofka dhaydidna waxa weye intaa u tagtid inaad ka qayb qaadatid sida usoo kaban lahaa dhaawaca uga soo kaban lahaa marka did you ever make amends ma samaysay weligaa wax dhayma ah yacni okay what is the meaning of life su-aasha 11 waa maxay macnaha nolosha su-aasha 12 what is your purpose in life waa maxay ujeedada aan noloshaada what is your purpose in life waa maxay ujeedada noloshaada okay su-aasha 13 do you like your life right now noloshaada iminka ma jecesha okay haddii aad ka jawaabtid no if not haddii aadan macnaha noloshaada hadda aadan jeclayn what is keeping you from changing it maxaa kaa haysta oo aad u bedeli laadahay maxay yihiin waxa kuu diidan inaad bedeshid okay 14 what people have made you who you are today dad nooceeya dadkeebaa kaa sameeyey ama kaa dhigay cidda aad maanta tahay qof walba yacni qofnimadiisa qof kale ayaa ka dambeeya hadduu doono asaga laftigiisa ha ahaado what people dad nooceeya ayaa have made you kaa dhigay who you are today cidda aad tahay maanta what experiences khibrado noocee ah have made you ayaa kaa dhigay who you are today khibrado noocee ah iyo tajribooyin iyo arrimo nooceeya yacni kusoo food saaray oo aad khalisay dabadeedna kuu bedelay oo kaa dhigay qofka ammaanta tahay noocu doonaba ha ahaade when did you last cry in front of another person okay goormay ahayd kolkii ugu dambeysay ee aad qof kale ku hor oydid or by yourself ama aad naftaadaba iska oydid markii kugu dambeeyey ay oydid goormay ahayd naf ahaantaada ama qof kale aad ku hor oydid okay waa laba su-aalood isla socda have you ever felt very strongly about something weligaas shay si aada macnaha u dareentay yacni and then eventually change your mind about it ugu dambeyntiina aad maskaxdaada ka saartay okay oo maskaxdaadii bedeshay tusaale ahaan oo kale waxba aada u jeclaatay dabadeedna yacni waa isbedeshay waxaa lagu arkay wixii adoon sidii u jeclayd aan u jeclayn ama waxba aada u nabcatay kadibna waxaa lagu arkay wixiiba adoo wata ama isticmaalay marka wax saasoo kale ama kugu dhicin noloshaada maxayse ahaayeen okay su-aasha 18 what do you think is your best quality maxaad u malaynaysaa inuu yihiin tayadaada ugu wanaagsan tayo nooceeya oo aad leedahay ayaad u malaynaysaa inay tahay tan ugu wanaagsan waa su-aasha saasay u dhacsa what do you think maxaad u malaynaysaa is my best quality tayadayda ani ahaan qofka kula hadlaya inay tahay midda ugu wanaagsan dee tayada ugu wanaagsan aan leeyahay maxaad is leedahay haddaa itaqaantid inay yihiin okay what quality do you want to nurture more of in yourself okay tayo noocee ah what quality tayo noocee ah ayaa do you want aad doonaysaa to nurture inaad quudisid more in badan of yourself naftaada yacni tayooyinka aad leedahay waxay doonaanba ha ahaadeen mid nooceeya ayaa rabtaa inaad aada u quudisid naftaada in ka badan kuwa kale okay do you have a good relationship with your body jirkaaga ma la leedahay xiriir wanaagsan dhab ahaantii su-aashani waa su-aal muhiima runtii do you have a good relationship with your body jirkaaga keliya ma ahana xataa maskaxdaada ma la leedahay xiriir wanaagsan maxay yihiin su-aalaha aad isweydiisid qaab nooceeya ayaad uga jawaabtaa maxay kugu soo kordhiyaan maxayse kaa dhimaan okay su-aalo noocaasoo kale waa inaad maskaxdaada weydiisaa okay qofku inuu yacni wax isweydiiyey runtii waa qayb ka mid a nolosheena waa qayb ka mid a caafimaadkeena laakiinse su-aaluhu inay bataan waxay ka mid tahay sidoo kale caafimaad darro okay sida su-aal in la isweydiiyo ay caafimaad u tahay ayaa waxa weeye su-aal badan inaa isweydiisidna oo weliba waxa weeye xal weydin ay u tahay waxa weeye caafimaad darro marka ka fogow waxyaalahaasoo kale inaad ogaatid yacni relationship ama xiriirka aad naftaada la leedahay waxay ku sahlaysaa inaad soo ogaatid war qof nooceeya ayaan ahay su-aal nooceeya ayaa isweydiiya
maxaa waxa weeye naftayda rabaa inaan ku siyaadiyo, maxaa ka dhiman, maxaa waxa weeye khalday, maxaa saxay, okay maxaa layga rabaa, waxyaalahaas oo dhan baa macnaha markaa jirkaaga xiriir la leedahay kuu sahlananay. Okay, do you find it easier to give or to receive? ma waxa kuu fudud inaad wax bixisid mise inaad wax qaadatid? labadaa keebaa kuu fudud? What is one dish or meal? waa kee cuntadee macnaha? waa maxay halka cunto that reminds you of home, taasoo kusoo xasuusisa gurigii, macnaa gurigiina haddaa meel kale joogtid iyo haddaa weli joogtidba maxay yihiin waxa cuntada keliya aa gurigiina kusoo xasuustid? halka cuntaa la rabaa. Have you ever broken up with a friend? weligaa saaxiib ma isku dhacdeen kadibna ma kala go'deen? Have you ever broken up? weligiin ma isku dhacdeen with a friend? What makes you anxious? maxaa kaa walwaliya? warwar iyo walbahaarka maxaa kuga abuura? maxaa naftaada ka walaaciya? Okay, what does happiness mean to you? maxay farxaddu kuu macno noocee ayay farxaddu yacni kuu leedahay? sababtoo ah dadku darajooyinka ay kala joogaan iyadoo loo eegayo qof walba farxaddu waxbay yacni ula micno tahay. mid baa wuxuu doonaya guri inuu gato, mid baa doonaya inuu madaxweyne noqdo, mid baa doonaya inuu waxa weeye caafimaad helo, mid baa doonaya ilaahay subxaana wa tacaala midba meel buu farxadiisa geliyey. marka farxaddaadu xageebay ku jirtaa, xageebay macno noocee ay ku leedahay farxaddu maanta? Okay, if you no longer had to work, haddii aad lagaa rabin inaad in badan shaqaysid, macnaha oo shaqada haddii lagaa rabo inaad shaqada joojisid, to live comfortably, si aad ugu noolaatid si waxa weeye raaxa leh, what would you be doing with your life? maxaad noloshaada ka samayn lahayd? macnaha haddii shaqada aad iska joojin lahayd si aad noloshaada si raaxa leh ugu noolaatid, maxay ahayd wixii aad samayn lahayd? waxa raaxada ku yeelaya noloshaada dhadhanka u yeelaya la rabaa in la ogaado. sidoo kale adigana muhiim bay ku tahay. su-aalahan runtii waxa ay kicinayaan ama waxa la carin ku samaynayaan in maskaxdaadu ay dareento waxyaabaha ay u baahan tahay, waxyaabaha ka maqan, waxa ay haysato, qiimaha ay leeyihiin, waxyaalahaas oo dhan baa waxa weeye runtii ay quudinayaan. okay, marka caqligaagu waa koraya, maskaxdaadu waa garaad ayaa kuusoo kordhay markaa su-aala isweydiisid, sababta jawaab baa heshaa fiican. okay, jawaabta aad siisid naftaadana waa kuwa ugu muhiimsan. ma ahan dadku waxyaabaha ay ku leeyihiin tanaad jawaab ku ah iyo tanaad jawaab ku ah. runtii taas way ku anfacaysaa tala ahaan, laakiinse dhab ahaantii xal uma ahan noloshaada inta badan. sababtoo qofkaas noloshiisa wuxuu ku beesgaraynayaa, noloshaada wuxuu ku beesgaraynayaa nolosha uu asagu ku nool yahay ama waxa uu asagu soo maray. waa waxyaabo aan noloshaada xiriirba la lahayn baa laga yaabaa, ama waxyaabo aada weliga xataa mari doonin baa laga yaabaa, waxyaabo aan weliga ku caawin karin bay noqon karaan, waxay doonaan bay noqon karaan. qof kale noloshiisa hab walba uu maray inaa istiraahday mar wax way caqli ma ahan, cilmi ma ahan, aqoon ma ahan si fiican oo loo fakaro. noloshaadu waxay leedahay wado ilaahay subxaana wa tacaala qof gaar uu kaa dhigay. ma jiro qof waxa weeye xataa fingerprintigaaga oo kala leh, fartaada macnaha xariiqimaha yarka ay leedahay oo kale qof le xataa abadan lama helayo. iska daa qof kale, xataa labadaada farood isku mid ma ahan. taleefanada dadka isticmaala way arki karaan markii haddii fingerprint u leeyihiin way tijaabin karaan. daminas waxa weeye iska daa farta keliya, wargebigaaga maskaxdaadu qaabkay u fakarto, jirkaaga suu yahay, caqligaaga, shakhsiyadaadu ma ahan mid lamida dadka kale. marka dad kale waxay isku dayayaan inay ku dabaqaan nolosha ay ku nool yihiin ayagu, ama ay soo mareen, ama ay u arkaan xal inay ku dabaqaan noloshaada. adigana waxaa laga yaabaa meel kale inaad wax ka aragtid. marka waxa weeye waxa ugu muhiimsan ee noloshaada waa inaad taladana qaadatid, wixii kaa anfacay ka qaadatid, wixii kaa anfacayna aad ka tagtid. sababtoo ah wixii aan ku anfacaynba waxa weeye dee maxay ku tarayaan? waxaadaysan noloshaada kusoo siyaadinayn maxay ku samaynayaan? what's one thing in your life? waa maxay 28 su-aasha 28 waa maxay halka shay ee noloshaada that you are struggling with right now hadda la daala dhacaysid? waa maxay shayga struggling? waa qofku waxa uu la daala dhacayo, waa waxa uu la halgamayo. waa maxay waxa keliya ee noloshaada aad iminkan hadda la jooga aad la halgamaysid? ma luqadda ingiliishka is leedahay si fiican u baro, ayadaa dhib kuga haysa, ma arrin kalaa jirta? maxay yihiin waxaas? okay, what is one thing? waa maxay halka shay in your life noloshaada that you are grateful for aad uga mahadnaqdid? waa maxay waxa halka shay noloshaada aad haystid ee iminkan aad uga mahadnaqdid? xataa haddaad waa weydid ama waa haysataa,
laakiinse kol walba waad ka mahadnaqdaa maxay yihiin ama maadigii ama waqtigii tagay bay kugu dhaceen ama waxa weeye weli weyba joogaan oo saameyntooda waa joogaan waxay doonaan ba ha ahaadeen maxay yihiin waxa aad kol walba ka mahadnaqdid oo aad ilaahay tiraahdo subxaana watacaala allow waxa weeye waa kaaga mahad celiyey shaygaas waa maxay shaygaas sababta waxyaalo waxaa jira xasuus gaara nagu yeeshay oo nafteena kusoo laalaabta maadaama ay aad noogu wen yihiin okay please waxaan ku leeyahay inaad like iyo share iyo subscribe ku samaysid ugu dambeyntiina waxaan ku leeyahay thank you for watching daawashadaada waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay gabagabadii casharkan iyo gunaanadkiisaba waxaan rajaynayaa inay su-aalahani wax badan maskaxdaada kusoo siyaadeen inay naftaada wax badan hadda isweydiinayso waana wax lama huraana inay naftaada su-aala isweydiiso waa shay aad muhiim u ah dee xal waxaa layidhi haddii aysan jirin lima haddii aysan jirin macnaha su-aal haddaan la isweydiinayn oo why aysan jirin xataa dameerka wuxuu dhihi lahaa anaa cilmi leh ha layga dambeeyo oo waxa weeye waxyaalahayga hala qaataa dhihi lahaa yacni waa inay jidhaan naftaada waa inay jidhaan wax la yihahdo why ay waxaan u dhacayaan why ay waxaan iigu dhaceen why maxaa sababay waa inay naftaadu isku xirtaa waxyaabihii dhacay wixii ka dambeeyey qaabkii loo xallin lahaa waxa tallaabada kula gudboon cidda saamaynta ku yeelan kara waxyaalahaas oo dhan waa inay naftaada kusoo dhacaan oo ay isweydiisaa waxaan rajeynayaa in cashirka uu xun ka faa'iiday inta doonaan halekaade fadlan aad iyo aad baa u mahadsan tahay intaan cashirka ku xiga ku kulmi doono waxaan kaaga tegaya nabad iyo nooli kulantay wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu